السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانيقو عبد الداعد شنن وحينو مانتا كهل دونا طبان كدالا يقول قالها بدن دوني دا سنة كي تقل لبوكني سقالي طبان كسو دوادا انتينو قدق نقدر يروح يسيسا لمبرك كوباد dalka dunida ugu dhaqaalaha badan waa Mareykanka oo booskaas ku jiray tan iyo 1920kii waxa uu dhaqaalaha adduunka hormuud ka yahay muddo dhan 100 sano ku dhawow dhaqaalihiisu waxa uu kor u dhaafayaa 21 trilyan sanadkan 2019 tagay waana dalka alaabta ugu badan dibadda kala soo dega kaalinta labaad waxa ku jira Shiinaha oo sameeya kobac dhaqaale oo ballaaran waana dalka la rajaynayo in 5 sano ilaa 10 sano ee soo socota uu kala wareego Mareykanka hoggaanka dunida dhaqaalaha Shiinaha waxa uu dhan yahay 14 trilyan sanad walba ku dhawaad 7% ayaa ku kordha kaalinta saddexaad waxa ku jira Japan oo ah dalka ugu warshadaha badan wax soo saarkiisu meel walba gaaray Japan wax macdan ama leh balse waxa ay hodan ka yihiin wax soo saarka warshadaha dhaqaalaha dalka waxa uu dhan yahay 5 trilyan kaalinta afraad waxa ku jira wadanka ugu hodansan qaaradda Yurub ahna hormuudka reer Yurub ee Jarmalka dhaqaalaha Jarmalku waa indan 4 trilyan waana dal aad u wax soo saar badan ku hormaray tiknoolajiyada iyo gaadiidka waana qaaraan bixiyaha ugu weyn qaaradda Yurub waana hoggaanka midowga Yurub kaalinta shanaad waxa ku jira oo sanadkan soo galay wadanka Hindiya oo noqday dalka shanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan waana dal la rajaynayo 3 sano ee soo socota inuu noqdo dalka ugu dadka badan dunida dhaqaalaha dalku waxa uu dhan yahay 2.9 trilyan kaalinta lixaad waxa ku jira UK iyadoo lagala baxay booska shanaad sanadkan UK ayaa muddo dhan kamid ahayd 7 wadan ee ugu dhaqaalaha badan dunida dhaqaalaheedu waxa uu dhan yahay 2.8 trilyan kaalinta toddobaad waxa ku jira wadanka Faransiiska ayaa sameynaya kobac dhaqaale oo gaabis ah dalkan saameynta ballaaran ku leh Afrika ayaa ka mid noqonaya dal ugu warshadaha badan caalamka dalkan ayaa leh dhaqaale gaaraya 2.7 trilyan kaalinta sideedaad waxa ku jira Talyaaniga oo ka mid ah 4 dal ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub ahna dal ka mid ah wadamada 7 ah ee nidaamka warshadaha ku hormaray dalkan dhanka xeebta koonfureed ee Yurub ayaa haysta dhaqaale dhan 2.2 trilyan kaalinta sagaalaad waxa ku jira dalka ama wadanka Brazil oo ah awoodda dhaqaalaha koonfurta America waana dal ka mid ah wadamada loo yaqaan G20 dalkan ugu baaxadda weyn kaalinta America ayaa haysta dhaqaale dhan 1.9 trilyan kaalinta toddobaad waxa ku jira dalka labaad ee dunida ugu baaxadda weyn waana Canada dalkan dhaca waqooyiga America ayaa ah dad ahaan iyo dhaqaale ahaan isku dheelitiran waana dal hodan ah wax soo saarka warshadaha waana xubin ka mid ah 7 dal ee warshadaha ugu horumaray dhaqaalihiisuna waxa uu dhan yahay 1.8 trilyan